بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود يا سؤال هذا ميل بدنا قضاء ونيسان ومركلة يا برنامج كنا ديرة هذا نقول عداوتان كل ما أنت وما نكله وأنا مركلة في دي مالنا ما إسنينه برنامج كنا قضاء بعد حساب بدنا إنه كسر قادم دونا سوق كالإبسجة كوحة ويني قارض يورب نادي ريال مدريد هالمشقة كتاعن فيني يسكول جيه مدحوينها كوحدة الناس ذا كلا أرنت دياس ليفربول الشر الشاعي إنه شن 7 مليون وكأدي يدونيستي إدنا روما كوحدة جالسي يسوق قلنا maxay u baahan yihiin suuqa iibsiga kooxaha dalka Talyaaniga iyo qodobka ugu dambeeya inuu kaga hadli doono bal sababaha dalka Talyaaniga kooxahooda ugu badanba ee ku ciyaaraan garoomo marka la fiiriyo dawladaha ama dawladda wadankaas ay leedahay oo ay garoomo breefada u dhisay laayihiin barnaamijka inuu ku falaqeyn doonaa maadaama qabiir dhanka Talyaaniga ah oo waaye 30 sano ka badan qabiirna la joogo marka digiri soo dhawow لكن أسكب حن هذه لفترك مايا وكل أنا جوكتي سايق الشيء سي وح جوب جوب واحد عياره مارادونا نيكي جيريودي أرجنتين لبضي كلن وغريغي يو قرنكا دلك نيجيريا ولا عياره كوبكي سغاشني أفرت انتي أيسن صابحن إن علامتي كابتن نمدا مع علامتي حشمد قوتي بارتانا اللي قسمي عن لقيه لين دروجة دي كانت إنجب أهم بكوبدي ساعات لقي جوجي لبضي عيار إنه ديلي أضع يجي الشيء وصح وطي هدي أنا سيجرنا برامجك أن قلبك أقوين مانت سبارتي وحوي هاي أن أنت كؤدن أن وربحنا الصحافة الدونك هذا الهيان ما أنت كؤدن إن فينيسيوس جونيور يمدحونا ريال مدريد دقال أضق ونحمري أن وكؤدن هيش عصبوني سينتا أبوكم راتي طلبوا أيو لعدنا قدراس كيسا 3 سنة وقراء عيال قرب عصب شروطه كحري ويرى أنا أنا إمبابي كم شهر بتاع مدحونا وحيري نيهو أن ميل على طابن أي صوت طابتي وكأدن إن عيالين إمبابة عيالين كم شهر بدن وكم قاموين إن أنا كحد جري دونين إستقر هذا ضربية كانوا في رسانية في مدريد إني إي بي سي ربان هالان إي كوسو بدشان ضد سكور فرنتين بريس هذا كفر إذا ريال كبيلعبون بلا واسع شيكتي مركلا فيريو عدكم مقام ما أنت مجرتوا عياليها كلمة مقعبو كيلان إمبابي حق السيحي سوكليا بقول إيه 40 مليون أها marka loo fiiriyo mushaaraadka uu qaato maanta waa lacag 30 milyan oo bilaa canshuura marka la isku daro gunooyinka noocyadooda kala duwan oo laacibkan kooxda Real Madrid qandaraaska marka uu siixay ayuu ku jirtay waxa qaybka kulamada faraha badan uu safto haduusan dhaawac noqon haduusan ganax ku seegin ciyaaraha waa inuu iska ilaaliyo calaamadaha sida yellowga iyo red cardka oo waxyaabaha discipline xumada lagu qaato waxa kale oo qaybka hadii uu goolal caawiyo hadii uu goolal badan dhaliyo laftirkeeda ciyaaryahanka lagu magacaabo Kylian Mbappe waxa ay kor u sii qaadaysaa gunooyinka mar walba uu ka helayo kooxda Real Madrid Vini waa nin maseer badan sana aaminsanahay Mbappe dhaqaalaha hadda uu soo xareynayo lambarka 10aad daabacadiisa ayaaba la leeyahaybo ugu yaraan 4 sano mushaarka uu qaadan lahaa waxa laga helay lambarka 10aad taasoo keenaysa in ciyaaryahan lambar 10aad la siiyay uu yahay ciyaaryahan muhiima astaanta iyo sharafta kooxdana maanta cid ka weyn aysan jirin ciyaaryahanka lagu magacaabo Kylian Mbappe marka Vinicius marka arintaas ayuu ka maseeraysan aaminsanahay sida saxaafadda laftirkeedu ay qorayso wariye Dana Zera wuxuu aaminsan yahay in Vini uu u soo bandhigay maamulka Real Madrid in la siiyo lacag ka badan lacagta Kylian Mbappe sanadkii 30 milyan isaga wuxuu xataa dalbanayaa lacag ka sii badan sida wakiiladiisa ay la fariisteen maamulka kooxda Real Madrid ما أودا واي ريال مدريد بحنت العكب 30 مليون سياسة دنك السوق السنة من سنة هاي ما أهان صابته رونالدو أيها كيو مشاركة بدنا 29 مليون والسنة كي كقاعدين جري وحكوا حقي لاعب كبنزيما 6 مليون وكقاعدين جري وحكى لنا ويكوسين لكن فيني إن لعبتي سل جارسي مشاركة لا يلعب كله 8 مليون وحيا هاد مدوين كي قدام بي إن لفتر كده قندراس كوردين هل مر لو سمي تاسو كنت حدنا wuxuu leeyahay maadaama daadiiduna ay wili xogaa aysan soddonka gaarin oo aan ka yarahay muuqaalka fiican ee garoomada ku soo bandhigay iyo magaca aan haysto laftirkeeda heshiisyadan carabta ee malaayiinta dollar ah waxyaabahaas oo dhan marka waxay keenaysaa in uu xogaa isqaadqaad u bilaabo ciyaaryahan Vini waxyaabaha ay Real ku dhaliilayso aysan rabin inay heshiisku u cusboonayso waxa kamid ah sanad ciyaareedkii la soo dhaafay caawinta uu sameeyay goolasha uu sameeyay uu dhaliyay iyo heerkii laga filayay muusan ku soo bixin marka taas waxay leeyihiin sanadkan bal ismuuji markaan aragno heerkaadii hore inaan ku soo laabatay waxaan diyaar u nahay inaan kordhino mushaarkaaga
iyo sanadahaadaba marka waa arin aan isleeyahay xogaa Real Madrid laftirkeeda waxay u muuqanaysaa koox aanan ciyaaryahankan sidii hore aysan ugu dhaganeyn Al Hilal iyo silamida kooxa kale Sacuudi Carabta ka dhisan ayaa dhammaantood waxay u soo dirayaan dalabyo ku aadan sidii ay u helaan ciyaaryahanka dalabka ugu weyn Al Hilal soo bandhigtay 200 milyan waaye Real Madrid 200 milyan inay qaadato inay sii haysato Vini iyo u wanaagsan waa marka su'aasha meesha taala Vini hal abuurkiisa iyo professional nimadiisa cid maanta Real Madrid booskas u buuxin karto haba yaraatee inay jirto ma u maleynaa sababtoo hadda laba nin oo meestara kooxda ka tagayo bedeladooda ilaa hadda ay laayihiin Toni Kroos oo kala hore baxay sanadkii hore isla sanadkan waxa baxay laacibka Luka Modric marka tii oo ay ku dhibaato qabaan Benzema xataa booskiisa ilaa hadda wax buuxiyaa laayahay tii oo ku dhibaato qabaan marka dhibaato kale ma sii dooran karaan waa Real Madrid maya mid u fudud marka waxay tahay inay ka dhaadhiciyaan oo ay yiraahdaan bal sanadkan smuuji sanadka dambe haddii foomkaagii hore ee lagugu yaqaana ee aad ku guuleystay abaalmarinta Viva the Best una tartantay abaalmarinta Ballon d'Or oo ay xataa gadoodeen la rabay in isaga la siiyo laakiin markii dambe Rodri uu ku guuleystay heerkaas oo kale marka aad timaado waxaan diyaar ku leenahay wax walba aad sheeganayso inaan ku sameeyno marka waxaan isleeyahay Vini marka waqti uu haystaa waa tahay qodobadii kale ayaan eegi doonaa Chelsea goolayaheedii ninka lagu magacaabo Marc Bandres oo Mareykanka u dhashay ugu dambeyn kooxda Strasbourg ee Ligue 1 ku biiray Faransiiska maanta Isniin ayayna Blues cadeysay statement ka soo baxay goolayaha Marc Bandres ayaa ku biiray kooxda kubadda cagta ee Strasbourg waliba kooxdan Chelsea mataano waay waa la leeyahay waxa iska leh Todd Boehly iyo Iqbal Timo Werner wakiilkiisa kooxda kubadda cagta Juve ayuu maanta la hadli doonaa macquul ahaansho ku aadan in uu mar kale fiiriyo oo ka dhaqaaqo kooxda waliba ninkan waxa leeyahay Amerikaanka ah Sport Italia waxay daabacaysaa kooxo fara badan oo Premier League ayaa dalab u soo jeediyay isagana wali muusan mar kale fiiriya ka hadlin arintan sidoo kale kooxda Chelsea waxay maanta ama 12 saac soo socotay soo gabagabay doontaa ciyaaryahanka lagu magacaabo Haito Jorel Haito waa kabtanka 19 jirka ay kooxda Ajax waliba ninkan hadda waxa leeyahay already 8 sano qalinka ku duugay 40 ilaa 50 milyan ayaana la isku hayaa marka la fiiriyo labada kooxood ee isku hayaan lacag dhan 10 milyan meeka Arteta kooxdiisana waati Giagros ee shalay ku soo bandhigeen Singapore waliba isagoo fanaanada la bara 14 wata 680 milyan oo dollar ay gabi ahaan lacagtiisu ay tahay ciyaaryahankan waxa qayb laga dhigay squadka kulanka Tottenham Hotspur ee kulanka saaxiibtinimo ee la dheeli doonaan isaaqna waxa leeyahay Luis Diaz iyo bedel u noqon doona oo Bayern Munich aaday 75 milyan una dhigantaa 88 milyan oo dollar ay ugu dambeyn ciyaaryahan Diaz ugu biiray kooxda kubadda cagta ee Bayern marka qodobkaas rabnaa Diaz 75 milyan 28 jir 55,000 ay usbuuci qaadanay 300,000 ay usbuuci qaadan doona wuu qadeeyay ninkan waxa waaye lacagtaasi ma u qalmay dad badan oo taageerayaal Liverpool waxay leeyihiin Bayern Munich waa la gaaday waayo Diaz oo 28 jir ah oo haddana ciyaartooy marka la fiiriyo sanadkii 20 gool ku dhalin karin ah sanadkii la soo dhaaf 18 gool ayuu dhaliyay ka waran Bayern heshiiskiis qamaar lagu tilmaami karaa horta Cabdullaahi marka la fiiriyo ciyaaryahan garab ka ciyaaraya ma looga baahan yahay tiro goolal intaas laag mas'uuliyadaas waxaan isleeyahay maba ahanba mid saaran waxa loo baahan yahay kaliya inuu noqdo caawiye warar jiro oo mas'uuliyadda gool dhalin kooxda looga baahan yahay laakiin isaga hadii laga helo 15 gool caawin 10 ilaa iyo ka badan hadii laga helo waxaan aaminsanahay ciyaartooyga inuu yahay mid ku filan hadii lagu qiimeynayo statistics-ka guud ee koox ku qaadan karto ciyaaryahan marka Luis Diaz 30 sano jir ah maanta in lacago sababtoo suuqiyaaba balilow aad moodaaba inuu aad isu bedelay xilli waxa xasanay 52 milyan lagu qaatay ciyaaryahankii Zinedine Zidane 2000 markii uu ka tagay kooxda Juventus oo ay bedelkeedu kusoo heshay dhowr ciyaaryahan oo kamid ah Christian Zanoni, Marcelo Salas, Pavel Nedved, Lilian Thuram, Gianluigi Buffon oo dhammaantood ay ka kala keeneen kooxihii Parma, Milan iyo naadigii SS Lazio marka 51 milyan ayaa 5 ciyaartooy Juventus xilligaas kusoo iibsatay shantaas ciyaartooy Talyaanigana caan ay ka ahayn Zanoni oo kale waxa laga keenay Milan laga keenay Lazio laba ciyaartooy Salas iyo ninkii Pavel Nedved laga keenay Parma Gianluigi Buffon oo goolwalihi iyo Lilian Thuram ayaa laga keenay bal maanta marka 50 milyan 5 ciyaaryahan shal lagu gadanay maanta kontonkaas wuxuu u qalmaa ciyaaryahan heerka hoose ka ciyaara in lagu iibsan karo maba aaminsanaba hadda kubadda cagto in 50 milyan laacib weyn in laga bixin karo marka waqtigeeda ayaa keentay in ciyaaryahan Luis Diaz lagu iibsado qiimo lacag intaas la eg haddana mushaarka marka aan fiirino ninkan waa sax oo u qalmay mushaar ilaa 300 gaaraya ama wax ku dhow in la siiyo Liverpool ninkan aad u rabtay
laftirkiisa kooxda waa uu rabay inuu joogo laakiin waxyaabaha la isku haysto waxay ahayd war saaxiibayaal aniga heshiiskayga Anfield 2 sano igaga dhiman mushaarka aan qaato waa 55 Bradley iyo Simicas iyo raggaas iga lacag sareey oo ah ciyaartoy heer hoose ah keedley ah maqaamka asaga uu ku jiray marka ayaga la fiiriyo wax aan isku dhow ahayn inkastoo xogaa Bradley uu yar yahay laakiin haddana Simicas iyo Kanouti dad badan ninkan ka lacag badan oo Gavan Bradley iskuma dhow xataa iyo Magalista iyo Soboslay dadkaas waa dadka lacagaha 200 lugta la sii galay iyo kaga sii badan iyo haddana saasay tahay waxyaabaha uu maamul kala fariistay uu rabo waxay ahayd in mushaarkiisa sare loo qaado qandaraaska uu kula jirna sare loo qaado si ay wixii oo dhan u noqdaan wax isu dheelatiran laakiin Liverpool oo ah koox siyaasadeeda dhanka mushaaraadka aad u yar mar walba ciyaartoyda markay soo iibsanaysa ay kala hadashaa oo tiraahdaa dhowr sano iyo saxiixa mushaar intaas ku siinayna way aqbalaan ciyaartoyda sababtoo ah magaca kooxdana weyn ciyaartoyda joogta ciyaartoy aad muhiim u ah koobna ku guuleysan kara marka laacibkan oo Bayern Munich tagay waxaan aaminsanahay sida macalinka uu sheegay Vicente Cameron waxa uu yiri haddii aan helo yiri Diaz wuxuu noqon doonaa nin qayb ka qaata mashruuca aan xil ciyaareedka soo socda isugu diyaarin doono si kooxda uu guuleysato tartanada ay ka qayb galayso oo ah Bundesliga iyo Champions League marka bixitaankan oo Diaz maxay kooxdu ku keeni kartaa marka dhibaato ah anagoo og inay haysato ciyaartoy ka ciyaar karta garbaha waxa jooga laacibkii Chiesa oo laftirkiisa isagoo xataa leeyahay hadaan fursad ka tagi doona waxa kale jooga ciyaaryahankii Nunez oo asaga laftirkiisa xataa ka ciyaaraya garab ka ciyaar kara waxa kale jooga Cody Gakpo garab ka ciyaar kara waxa kale hadda jooga ciyaaryahankii Hugo Ekitike laftirkiisa oo asaga xataa marka qaar garab ciyaar kara ciyaartoy badan haysato oo garab ciyaar kara kooxda Liverpool waa ay joogan laakiin haddana macalinka kuma filno 4 ilaa 5 ciyaartoy wali wuxuu raadinayaa maadaama kooxdu ay ciyaar doonto season dhan oo tartano kala duwan oo maxalli iyo kuwa qaarad Yurub in la sii helo ciyaartoy kale oo baag ah xitaa Maxamed Salah garab ciyaar marka garbihi way buuxaan haddana saasta wali Liverpool garab ay raadinaysa waa sababta maanta oo isniina ay soo bandhigi doonto lacagta saxda ah oo ay ku rabaan inay ku iibsadaan ciyaaryahanka lagu magacaabo Alexander Isak 120 milyan xalaal soo bandhigay Newcastle hore u sheegtay inaysan lacag ka yar 150 milyan aysan ku iibin doon laakiin Liverpool waxay soo bandhigi doontaa lacagta saxda ah oo ay ku rabto 130 ay noqon doontaa 135 ay noqon doontaa 140 ay noqon doontaa mise 150 laftirkeeda ay ogolaan doontaa si ciyaaryahan sababtoo ah lacag badan ay hadda haysataa maadaama Diaz uu meesha ka baxay lacagihiisii ayaa bangiga ugu jira marka taas laga yaabaa inay adeegsato lacag kalena ay ku darto si ay u hesho ciyaaryahan ka daayar ka mustaqbal fiican hadda Diaz oo kale nin ma ahan dhaawaciisa ay badan yihiin Bayern Munich aniga way ku qasaaray ma aaminsanayo waxaan isleeyahay waxa uu noqon doonaa nin qayb ka qaata Allah soo socda inay Bayern koobka Europe ay ku guuleyso maadaama Bundesliga hadda ay difaacanayso safiican warka hadda la daabacay Fabrizio Romano uu soo daabacay waxa kamida in marka la qiimeeyo suuqa kala iibsigu aad iyo aad u kulul yahay oo kooxaha waaweyn ee qaarada Yurub ee ciyaartoy fara badan ee daneynayaan waxaana moodaa in marka la fiiriyo hadda Green Xhaka oo kale uu ku biiray kooxda kubadda cagta ee Sunderland Juventus iyo AC Milan iyo Inter Milan ayaa rabeen laakiin Talyaaniga 15 milyan ka badan ma bixinayna dheheen 32 jir waay heshiis ilaa 227 iyo siixay 20 milyan ugu dambeyn waa lagu iibsaday Manchester waxay soo diiday dalab 20 milyan Anthony oo Ribatis ah iyo 50% ay dabarayaan waxyaabaha xuquuqda uu leeyahay Al Nassr ayaa hadda aad iyo aad ugu sii dhawaanaysa Newcastle Tottenham muxuu ahaa Inter Milan iyo AC Milan waxay isku haystaan ciyaaryahanka kooxda Arsenal ninka lagu magacaabo Gabriel Jesus waliba labada kooxood ee reer Milano ayaa la leeyahay waa macquul inay aadaan Aston Villa waxay ku soo beertay doonista lagu jiro Dominic Calvert-Lewin oo free agent ah waliba xor ah kooxda Everton heshiiskiisa u dhacay Milan iyo Newcastle ayaa sidoo kale qayb ka ah Manchester iyo Newcastle labadan waxay ku dagaalamayaan saxiixa Benjamin Sesko oo la leeyahay waa macquul in ilaa Iberito arintiisu war ay ka soo baxaan sidoo kalena qodobada kale ee suuqa ugu waaweyn waxaa kamid ah Chelsea ciyaaryahankeedii Dewberry Hill Kieran Dewberry Hill ciyaaryahankii hore ee Leicester City waxa soo dalbanaysa kooxda kubadda cagta ee Fulham 20 milyan iyo ku raba laakiin Chelsea waxay leedahay 35 milyan ilaa 40 milyan waa lacagta kubadda goobena Chelsea marka ilaa hadda Joe Falkis waati 50 milyan ay ku iibiyeen Madueke 2 milyan Petrovic waati ku iibiyeen 20 milyan ku dhawaad 100 iyo adiga 30 milyan ayaa hadda saddex ciyaartoy ay ka sameeyeen Manchester iyo Newcastle iyo Tottenham Al Hilal ciyaaryahankeeda Alexander Mitrovic wariyaankii hore ee Fulham ay iyagana dagaal ay ku soo qaadi doonaan
kooxo fara badan oo Serie A Atlanta ayaa hogaaminaysa arinta ciyaaryahanka lagu magacaabo Chiesa oo hadda Football Italia ay daabacayso in kooxda kubadda cagta Liverpool ay dhigeysanayso dalab xitaa 20 milyan ka yar ilaa ay haddana war rasmi ah oo kooxdaas dalab rasmi ah loo soo gudbiyay ilaa ay hadda ma jiraan marka kulli waan ogaan doonaa qodobada kale Donnarumma ayaa sheekadiisa u maan doona kooxda Chelsea hadda soo gashay Donnarumma oo waxa leeyahay Todd Boehly waxay qiimeynayaan macalinka muxuu ahaa ninka Enzo Maresca la yiraahdo inuu la midoobay ninkan Talyaaniga asalani ka soo wada jeedaan marka la fiiriyo golayaha qaranka Talyaaniga kooxda kubadda cagta ee raadi Paris golaya leelay ka soo qaateen oo marka la fiiriyo bedelkiisa ah 40 milyan ugu dambeyn marka waa lagu dhawaaqay Donnarumma marka inuu baxay u badan tahay digriya ma muddo Donnarumma in kooxahan Premier League Man City iyo Man United iyo Chelsea hadda isku haysta yaa ku guuleysan kara Manchester United ayaa ahayd kooxdii ugu dambeysay wararka hadda oo ay meediyaha si weyn u hadal hayaan maadaama ciyaaryahankii goolka ugu jiro aysan kalsooni badan ku qabin sidoo kale Ben Yedder oo kulankii West Ham United ka soo muuqdayna aanan lagu kalsoonaan karin marka loo fiiriyo waxqabadkiisa Man United aad loo dhaliilaya siyaasadeeda dhanka suuqa laakiin waxa leeyahay hadii ay horumar ka sameyso la soo wareegitaanka Guardiola Donnarumma oo la ogyahay inuu yahay hogaamiye inay u noqon karto meel kale oo ay Manchester United aysan lagu dhaleeceyn karin dhinacaas sababtoo Man United hadda waxyaabaha dhaleeceynta badan loo soo jeedo waxa kamid ah goololaha oo la yiraahdo Onana wax badan hadii booskaas loo heli lahaa goololihii hore ee kooxdan ka tagay David De Gea way yaraan lahayd saameynta ilaa iyo booska 15aad inay Premier League kugu dhameysatay kooxda Manchester United marka hadii la xaliyo booska goololaha Manchester United sanadka soo socda ama xilli ciyaareedka soo socda waxaan aaminsanahay inay boosaska 6aad ilaa 5aad iyo 4aad ay ku dhameysan karto ama 7aad xataa tartanada Euro hadda ay seegan inay ku soo bixi karto laakiin su'aasha taagan waxay tahay Man United waqtigan ma awoodaa inay bixiso mushaarka Man United waa kooxda ugu badan ee mushaar bixiso marka la fiiriyo ayadii Manchester City horyaalka ciyaaraha Premier League Casemiro aan ogsoonahay inuu kamid yahay ciyaartoyda xilli ciyaareedkooda ugu dambeeyay ku jira ayaa mushaarkiisu waxa uu gaarayaa 300 iyo intaasoo boqol kun Sancho oo laftirkiisa Juventus u socda isaga laftirkiisa waxa leeyahay lacagiisu waa 375 marka dhammaan ciyaartoyda Manchester United oo dhan waa niman isku soo dhowdhow mushaarkooda 6 nin waxa arkaysa waxay wada qaadataa 250 ama 5 nin marka waa mushaar xad dhaaf koox bixiso waxa hadda uu ku dagaalamayna Donnarumma waxa ay tahay mushaarkayga hal saramariyo si aan u noqdo nin waqti dheer kooxda sii joogo waa saxo sababtoo horta hogaamin ma leeyahay kooxdu hadaysan hogaamin gool hay lahayn waxa waa 90% waa eber waa sababta Chelsea maanta gaarsiisay heer Premier League ayadoo la leeyahay waa tartamayaal oo Liverpool ay qalqal gelin kartaa inay booskii saddexaad ku dhameeyo booska afraad ku dhameesto iyadoo waliba championka toogayso kulan waxa haysta Fulham la ciyaar saddex badan leed hogaankay si ku meel gaar u sii qabaneed laakiin ma aysan dhicin December wixii ka dambeeyay Chelsea hoose u dhacay sabab loo aanayna wax kale ma ahayn dhanka gool walaha waa Gianluigi Donnarumma waa nin falsafada hogaamineed ka dhaxlay goolwalihii kooxda Juve ee qaranka dalka Talyaaniga ee Gigi Buffon kooxdii yeeshan waxaan isleeyahay sanad ciyaareedka soo socda wax weyn uu ku soo kordhin karaa Gianluigi Buffon ballo arrimaha kale waxaan isleeyahay arinta William Saliba oo aan gordhow arkayay William Saliba wuxuu ku dhow yahay inuu qandaraas cusub gacan geliyo kooxda Arsenal waxaana loo ballan qaaday in toddobaadkii la siin doono 200,000 oo mushaar ah bal fiiri meesha ciyaartoyda qaar ay ka dagaalamayeen 300,000 400,000 500,000 Maxamed Salah oo kale 500,000 oo toddobaadkii qaataa Haaland waa ka badan yahay marka ciyaartoyda marka ay formkooda ugu fiican ku jiraan waa inaysan isdhaafsiinin fursad oo ay haystaan oo ay ku noqon karaan ciyaartoy magac iyo mushaar fiican kooxooda ka qaata hadda laakiin asaga Real Madrid soo dalbatay mushaar fiican la joogaa kooxda dalbanaysa koox yar ma ahan waa Real Madrid waa koox ciyaaryahan walba marka ay soo dalbata riyaday waa irmoodo uu yiraahdo adoo qadahaysta quraaci qadahaysta di casho ugu daray waa VIP jirta marka Real Madrid waa noocaas oo kale marka uu soo dalbato Real hadda soo dalbato mushaarna ku siilayso koobab iyo biladana waa ka dhargeysa mushaar fiicanna waa ka dhargeysa marka William Saliba hadda wuxuu yiri aniga Real waa riyada yaraanteedii waa wali waa yiri 23 jir waaye laakiin wuxuu yiri waxaan diyaar u dhahay 2020 qandaraaska dhaca hadda 3 sano 4 sano ku sii kordhi waa 2031 waa 32 kadib Real Madrid ciyaartoy ayada ba heli karto akademiyada ama dhanka kale ciyaartoy daayir ay soo saaran kartaa marka William Saliba gabi ahaan waxaad moodaa inay ka soo dhamaatay shaqada Real Madrid ay ku aadaneed inuu aadi doono halkaas Ibrahim Kanouté hadda u jeesanay Ibrahim Kanouté laftirkiisa isaga xataa maamulka Real Liverpool leesh
heshiiyey waxaan loo ballan qaaday lacago badan oo mushaar ah iyo qandaraas waqti dheer in laga soo maadaama uu kamid yahay ciyaartooyda mustaqbalka ee rabaan inay kooxda Liverpool ku dhisaan maadaama asaga laftirkiisa 26 jir uu yahay wararka kale Real Madrid waxay diyaar u tahay 40 milyan oo lagu daray Rodrigo iyo Eduardo Camavinga in Rodrigo ku soo bedeshaan Man City marka way diideen ciyaaryahanka Poland iyo orada qaaday James Trafford caafimaadku maray waa lagu guuleystay kooxda Man City ayuu dib ugu soo laabtay waa goleeyay kooxda Burnley 27 milyan ayaga leelaha Man United waxa leeyahay Paris Saint-Germain iyo kala hadlayaan Randall Colomwani Juve waxay rabaan in heshiiskii amaada ahaa dib loo soo cusboonaysiiyo Joe Falkis waati كنت ملين ugu biiray kooxda kubadda cagta isagana muxuu ahaa kan yo Falkis laftirkiisa waxa fududeeyay waxa waliba hadda Anthony iyo Ben Chilwell iyo xaga waa loo qaraabtay ninka la yiraahdo xataa Raheem Sterling waa ninkan oo Man United muddo dheer dhaawacay iska maqan Luke Shaw xataa uu kamid yahay dadka halkaas aad rabta laakiin arintan hadda yo Falkis oo kale waxa leeyahay waxa fududeeyay Cristiano Ronaldo diyaarad qaas oo soo diro yiri waa inay ugu imaadaan Vienna Austria si halkaas tababarkeena aad qayb nagala noqoto waxa la yiri bal horta حتى قال لهاي برتقال فمل كيسة سومع سلامة كدب السعودي هاي ما تشجع ماشي هكمر وعافمات كدبنا أستراليا ما دعك كرتوير محله بايو ده جديد تيدا ديارو ده ديارات قاس وليه هاي أي الله قدر لندن برتقال ما هو مرنبا توس فيينا لوجي وحليري والد كا أنا بقى والد كلمة جيرو تيجي كم حين أمر ديار واحد من رونالدو قبل ده سوق جيران لمرؤن وأركو أستر فيينا وجوه هالكاس النصري ترينينج أما توبر برسيسن كور سوق ديار نيسو مركا النصري السنة كسوس ده حيربطها إنه يكون جولي ستو كوب وين هذين نقول لك جدا السعودية العربية يترتنا ذلك الاتحاد الهلال أقول على ماشي مركا بلو وحاجة مركز سياسة عربت gaarahaan horyaalka Sacuudiga u degsan horyaalka wuxuu u qaybsan yahay laba qaybood waay shirkadan oo Sacuudiga ayaa maalgelin ku sameeyay horyaalka waxaana loo qaybiyaa laba qaybood oo kala waqooyiga iyo galbeedka oo kala ama koonfurta iyo galbeedka marka sabaha loo qaybinayo waxay tahay koonfurna waxa ka dhisan ugu yaraan dhowr kooxood oo waaweyn waqooyigana waxa ka dhisan dhowr kooxood oo waaweyn sanadkii la soo dhaafay kooxaha la hubeeyay waxay ahaayeen nimankii ii sheeg kooxaan oo Mahrez iyo Neymar kooxdii iyo Benzema iyo haddana Al Nassr iyo kooxihii kalentooda ayaa la hubeynaa oo dhinacan jira sanadkii hore maadaama kuwaas la hubeeyay hadda sanadkan lacag badan kuwana la qarash gareynaa marka Ronaldo sanadkoodii waaye oo qarashaadka ay kooxaha shirkadda Sacuudiga ay ogashahay inay maalgeliso marka taasa marka waxay keenaysaa in Ronaldo uu hadda dalbado ciyaartoy badan maadaama qarshaad badan laga taxay la leeyahay saaxiibo yaraantiis ahaayeen directorka kooxda laga dhigay macallinkii waa keenay macallinkii Al Hilal kooxda waa la keenay oo Al Hilal macallin u ahaa inkastoo Al Hilal laftirkooda ay haystaan Inzaghi oo macallin aad u fiican tactikiisa iyo khibradiisa nin Talyaanina marka balangan wuxuu joogaa al-Ittihad marka ninkan Ronaldo hadda waxyaabaha ciyaartoyda uu dalbaday sida uu dhaqsiya badan waxa kamid ah in Anthony waxaan isleeyahay xogaa ma Sacuudiga oo saga soconaasi waa barashar ma aha لكن هديبا لعق أي بحنايان ciyaartoy fiican inay soo qaataan kulli waa arki doonaa Tottenham ugu dambeyn waxay aqbali doonaan 20 milyan oo ku aadan kooxda Los Angeles FC ee dalka Mareykanka arinta ciyaaryahanka lagu magacaabo Son oo la sheegay ilaa maanta arintiisu ay gabagabo noqon doonto Newcastle Raid ay u tahay inay Brentford ka soo qaataan Yoane Wissa ciyaaryahankan DR Congo u dhashay kooxda ayuu u sheegay inuu rabo inuu halkaas u aado wali bedelkii Isaaq iyo raadinaya Benjamin Sesko iyo dhamaan Arteta si official ayuu ugu sheegay Shashango inuu koox u raasado Borussia iyo Milan Inter ayaa qayb ka ah Valmangan way beeniyeen in wada hadal qarsoodiya ay la galeen ciyaaryahanka lagu magacaabo muxuu ahaa Gabriel Jesus sidoo kale kooxda kubadda cagta West Ham arinta ciyaaryahanka lagu magacaabo Lucas Paqueta Palmeiras soo dalbatay inka Premier League 3 milyan ayaa marka la fiiriyo qiimihiisa uu ka jooga inkastoo wararka soo baxaya la leeyahay ciyaaryahanka ganaxi ayaa laga yaabaa inuu mutaysto maadaama lagu helay inuu xogaa qamaar iyo waxyaabo uu isticmaalataa oo cadaadis nafsiyan saaraysa sidoo kalena qodobada kale ugu waaweyn waxay tahay maanta hadii aan fiirino Bayern arintii Luis Diaz wad aragnay Isaaq Madrid waxay ku jirtaa iibinta ciyaaryahanka waa 5 ciyaartoy oo waaweyn oo kooxda ah ciyaaryahanka reer Brazil ayaa kamid ah Rodrigo Camavinga kamid ah si balkaas isbedel dhanka dhaqaalaha loogu dareemo oo kooxda isbedel fiican ay sameeyaan kooxda Tottenham Hotspur khiyaano ay ku tilmaameen taageerayaashooda Nottingham Forest ciyaaryahankooda garabka ee Gibbs White ka ugu dambeeyay heshiis cusub qalinka ku duugay waliba ilaa 2030 ka maadaama ay aad iyo aad u baadi goobayeen marka kulli waan arki doonaa iyagana digrey waxaan oo dhiman daqiiqado waxaan rabnaa inaan daqiiqadan ku soo koobno
dalka talyaaniga waxaan la soconaa kooxaha garoomada dowladda ay ku ciyaaraan Roma labada kooxood ka dhisan hal garoon ay wada leeyihiin Milan waan ognahay Inter garoonka dowladda way Stadio San Paolo dowladda iskale marka laga reebo Juve iyo kooxo kale oo Udinese iyo iyaga garoomo ay leeyihiin Dal Albi oo kale iyo Torino garoonka dowladda ku ciyaarta ma moodaa marka kooxaha talyaaniga maxay tahay sababta ay garoomo u dhisan la yihiin dhaqaale darrena ma hayso laakiin dowladda inay boqolkiiba boqol ay maamusho garoomadooda ballo marka la fiiriyo horta dalka talyaaniga kubadiisa horta waqti hore soo bilaabatay in hadda garoomo la dhisana horta hore magaalooyinka ay kooxahaas ka dhisan yihiin ma yihiin magaalo firaaqa ah oo garoomo laga dhisan karo jawaabtu waa maya duq magaalo ayaana maamula garoomada kubadda cagta ama dowladda hoose magaalooyinka ay ku yaalaan tusaale kale caasimada oo kale Roma garoonka Olympica ku yaalo dowladda hoose ee magaalada Rome ayaana maxay tahay maamusha laakiin boqolkiiba 20 dowladda hoose ayaa dakhliga ka soo gala qaadata si garoonka loogu dayactiro shaqaalaha garoonkana ay maxay tahay isheeg wax loogu siiyo halka boqolkiiba 80 ay leeyihiin kooxda iyo shirkadaha xayeysiimaha meesha jooga TV-yada iyo heshiisyada hoosaadka lala galo kambaniyada marka meelahaas ka jira dhammaan garoomada hadda Lecce oo kala Via Dalmere ku ciyaarta dowladda hoose iskale Udinese oo kala Friuli Stadium ay ku ciyaarta waxa iskale dowladda hoose iskale Atlanta di Azzurri magaalada Bergamo ee ka dhisan tahay Como oo kale magaalada ka dhisan tahay Milan oo kale waa isku wada magaalo oo Atlanta Como Milan AC Milan Inter Milan waxaas dhan waa hal magaalo ka wada dhisan yihiin Juventus oo kale waqooyiga waaye Torino halkaas Juventus waxay waqti hore lahaan jirtay garoonkii hadda aad magac dhawda caanka ah Dal Albi Stadium laakiin haddana ugu dambeyntii waa ay ka guureen oo garoonkii Olympico isla magaalada Torino ku yaala ayaga iyo Torino ayaa isla degeen mar dambe Torino waa Juve ay ka soo guurtay garoonkeeda dhisatay haddana sidaas ay tahay dhulka ay heleen kuma filna leeyahay kooxda Juventus maadaama waqooyiga buuro uu yahay oo dhinacaas ay jiraan dhulkoodu waa yar yahay haddana garoonka qaadkiisa aad u yar yahay waxa la tilmaamaa 41,000 ayuu garoomada casriga u dhisan qaabka dhismaha garoon qaab casri u dhisan waana garoon kuraastiisa aad u yartahay haddana saas tahay garoomada dalka Talyaaniga aad ay uga weyn yihiin marka loo fiiriyo garoonka Inter Milan oo kale oo Giuseppe Meazza iyo San Siro labada kooxood markay magacaan ku kala dheelayaan waa garoon martigeliyay finaalo badan oo haday noqon lahayd Champions League iyo haday noqon lahayd tartamada kale Europe sidaas oo kale garoonka kooxda Napoli ku ciyaarto ee hadda magaca Armando Maradona loo bixiyay markii horena kamid ahaa garoomada xulka uu adeegsaday ay ahayd sidaas ay tahay haddana heshiisyada ayaa mar walba ay ku xirnaan kartaa iyo dhacdooyinka saxda ah ee markaas dhaca maadaama Maradona uu dhintay kooxdan markuu imaanay ay laba horyaal ku guuleysteen iyo hadda laba horyaal ay ku guuleysteen saas darteed marka waxaa jirta in heshiiska la cusboonaysiiyo lacagtana dowladda hoose loo badiyo kadib magaca saas looga bedelo marka magacyadan waa magacyo asaliya garoomadan waqtigii magacyada loo bixiyay ma jirto ilaa hadda garoon magac laga bedelay waa hal iyo labo sida hadda Maradona oo kale stadium oo Napoli ay bedeshay Artemio Franchi oo kale waxa iskale kooxda kubadda cagta ee Fiorentina Catania ayaa kula ciyaarta oo magaalada Venezia Florence ay ka wada dhisan yihiin sidoo kale waxaa jirta kooxahan Serbia laftirkooda garoomo yaray leeyihiin ayagana ku wada ciyaar hadda labadan kooxood oo Kiev Verona iyo Hellas Verona hal garoon isku wada leeyihiin oo Bentagodi Stadium waa garoonkii Armando Maradona ugu magac daray godka naarta ama Bentagodi Stadium marka waxaad moodaa in garoomada maanta inkasta ugu kadisay oo si fiican in soo diyaariyay warbixinta la xiriirta garoomadan dalka Talyaaniga haddana waxaa aaminsanahay inay yihiin garoomo waqtigoodii hore looga soo faa'iideystay laakiin hadda ilbaxnimadan la rabo inay kaga faa'iideystaan oo ay helaan garoomo casri sida hadda Premier League oo kale West Ham United garoon ay leedahay iyada iskale Tottenham garoon ay leedahay Arsenal garoon ay leedahay Man United garoon ay leedahay waa ka faa'iidaan dhaqaale fiican ugu soo galaa laakiin inta waxa waay dawladdiina waxba looga faa'iideeyaa kooxiin waxbay kaga faa'iidaan maadaama dhaqaale ahaan hadda labada dawladood Talyaaniga iyo Ingiriiska inay isku mid yihiin waata dad weyn ka dhigi doona daawadayaal kulli waqti aan ugu dhacay inta sarabna inaan ku soo gabagabeeyna barnaamijkeena diiradda suuqa iyo qodob yar oo xogaa falaqeen aan ku darno ku aadaneed
dalka talyaaniga kooxooda garoomada ay leeyihiin inta badan 80% dowladda askara sababta ay garoomo u dhisan laayeen inkastoo hadda Inter Milan ka shaqeynayaan inay garoomo caadi ay dhistaan Udinese iyo Juve iyo kooxo yar ayaa iskala garoomo caadi oo iyaga ay leeyihiin milkiilayaasha iskale marka intaas rabnaa inaan ku soo gabagabeeyno barnaamijkeena diirada aniga iyo digiri ee saaxiibada kale nabadgelyo